السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. داوديال kusoo dhawaada barnaamij gaar ah oo aan maanta ku wareysan doono aqoonyahan Saciid Cabdi Xasan oo ku magac dheer Boqor Cirmadow. waxaanu wareysigeenan ku eegi doonaa saameynta uu xanuunkan coronavirus ee safmareenka ahi uu ku yeeshay caalamka iyo sidoo kale dhulka Soomaalida. ugu horeyn kusoo dhawow muxuu ahaayay telefishinka caalamiga Star TV Saciid. aad ma santaa Cabdiraxmaan oo ku salaamaya waa ku faraxsan waan ku soo dhawahay. ugu horeyn hadii aad bal eegto kale aqoonyaha baa tahay bariyo dambeeyo daraasayn bad waday bal xanuunkan coronavirus ee COVID-19 saameynta uu ku yeeshay dunida hadii aad faahfaahin ka bixiso. waa ma santaa Cabdiraxmaan oo saameyn weyn buu cudurku ku yeeshay adduunyada waliba adduunyada horumartay tasawulkiina waa kasi daran tahay. xanuunkan wuxuu muujiyay awoodda dunidu ay u leedahay haddii masiibo caafimaad oo sidan oo kale ay timaado inaan awood badan oo la iska celiyo oo xajmi inta leeg leh aanu jirin. waxa muuqata adduunyadu inay ku tirtamaysay hub laakiin si aan loo diyaar garoobin dagaalka caafimaad ee adduunyada soo wajihi kara. waxaanu arkaynaa in dhaqaale adduunyadu aad hoos u dhacay oo la leeyahay dagaalka koowaad adduunka dagaalka labaad adduunka marka laga yimaado dhaqaale kana ka sii xun dhaqaalihii xilliyada dhacay dhaqaale xumada xilliyada dhacday kana ba ka sii daran. waxaanu arkaynaa muxuu ahaayay adduunyadu oo dhan inay bilowday inay iscaawiso dhinaca caafimaadka oo qolo walba qolada kale waxay dheer tahay ay maaragtay muxuu ahaayay ku taageerto. waxa la oran karaa marka corona koow adduunyadu horta isbaray inaanay u diyaar garoobin caafimaadka oo dhinaca aan lagu dadaalin oo qoodii waaweynaa caalamka Mareykanka ugu horeeyay hadda uu la ildaran yahay cudurkan caafimaadkii inuu hooseeyay ayaa soo baxday oo aan dadaal badan oo caafimaad la gelin dhaqaalihii inuu hooseeyay isku socodkii buu kala xanibay sidoo kalena maaragtay bulshadii ayuu kala fogayay runtii oo maanta dad badan baa waxay ka cabanayaan dadkooda oo dhintay inaanay aasan karin oo aanay u tagi karin oo maaragtay qaarkood TV-da inuu ka arkay iyadoo laga tusayo leeyahay halka ka daawada waliba dadkaas waa dad la ixtiraamay kuwa kale xabaal waradiya loo sameeyay oo dad badan baa la isku aasay waxyaalahaas oo dhan buu soo kordhiyay cudurka coronavirus. sidoo kale intaynu ka bixin arinta dadka muslimka ee u geeriyoonaya xanuunkaasi qaarkood laguma tukanayo oo qaarkood magaalooyin kale sidii aynu xalay ba arkaynay qaar ceergaabo looga tukaday bal arintaas oo dhan marka la eego dunida miyay filanaysaa lama filayn way hadii la filayay waa loo diyaar garoobi lahaa. waxaad aragtaa cudurkan dal walba dalku caafimaadka ka horreeyay xogaa inuu ka saameeyay for example Jarmalka kale oo lagu tilmaamo dalalka caafimaadka adduunka ugu horeeya kamid ah dhimashadu waa ku yartahay marka Ingiriiska loo eego sababta waxa la yiraahdaa waxa ugu weyn waxa weeye ilaa 28,000 oo sariirood oo mashiinadan maaragtay oksijiinta leh ayaa muxuu ahaayay uu Jarmalku diyaarsaday halka Ingiriiskuna 4,000 meelaha uu haystay. marka sababta badan ee dadku dhimanayaan maadaama cudurkan uu naqasku dadka qabanayo waxa la leeyahay waxa ka badbaadi kara dalalka u sii diyaar garoobay oo mashiinada oksijiinta haysta. marka dalalka aan haysanna dhimashadu waa ku badnaanaysaa gaar ahaan dadka waayeelka iyo dadka cudurrada kale qaba iyo maaragtay muxuu ahaayay dadka caafimaadkooda aan wanaagsanayn. ilaa xillimaad leedahay waxaynu ognahay dunida in la kala xanibay la isu gudbi karin ilaa xillimaad leedahay bay dadkani ku jiri karaan inaanay diyaaradu sodcaalin dadku isu gudbin guryaha laga soo bixin. Cabdiraxmaan lama saadaalin karo maxaa yeelay dalka China oo lahaa waa tirtirna cudurka oo waagi ugu dambeysay rabay inuu isku furo magaalada ay ka bilaabatay Wuhan ayaa hadda cudurkii dib loogu arkaya inuu soo noqday ma garat adduunyada waagi hore cudurradii dhici jiray oo maaragtay cudurkii 100 milyan ku dhimatay kale hadda la sheegay taariikhiyan adduunyada waxa saameyn isku socod baan jirin diyaarado badan baan jirin dad isku safrayaan jirin adduunyada hadda waa isku safraysaa way adag tahay in la sheego xilliga cudurkani maaragtay uu ka tagay dunida sidoo kale waxa la filayaa qaaraddan Afrika oo kale saameynteedu hadda soo gashay oo waxa la leeyahay wixii 15 ka dambeeya bisha oo hadda waqtigeeda looga dhiman yahay ayaa la arkayaa saameynta weyn ee cudurkani uu Afrika ku yeelanayo. marka waxaad moodaa cudurka hadda Yurub inuu ka soo dhamaanayo oo dalalkii aad moodo Spain iyo Talyaaniga war fiican laga filayo Mareykanka kor buu kacaya waxa la leeyahay hadda qaaradda Yurub Afrika ayuu soo wareegaya marka wax la saadaalin karo maaha xilliga laga baxayo inaga xataa waxaad ogtahay Soomaaliland in la sii dheeriyo waqtigii marka waxa arkaysaa xaaladu inay sii cuslaanayaan ilaahay naga fududay. xanuunkan asalkiisa wali si fiican looma shaacin inkastoo la yiri fiidmeer buu ka yimi haddana wax la leeyahay tiknoolajiyadan casriga ee 5G baa keentay waxyaabo badan
wararka qaar waxay sheegayaan in cudurkan la sameeyey oo uu markaa si aan markaa loogu talagalin hawada u galay wararkaasoo dhan waa jiraan oo waxaa laleeyahay laab buu ka baxay cudurkani waxbaa la tijaaminayey dad waxay leeyihiin xayawaanaad buu ka yimi dad waxay leeyihiin maraykanka iyo jaynaha waxaan isugu talagalay laakiinse anigu waxaan qabaa cudurkan cudur dabiici inuu yahay waayo haddii la isugu talagalay oo waxaan maaragtay loogu talagalay dad in lagu laayo waxaan isleeyahay qolada samaysay dee dawa usii diyaarsan lahayd haddii awal maraykanka lagu eedeynayo lalahaa maraykanka maaragtay sameeyey isagii baa maanta la eldarar waxba haynin marka anigu waxaan leeyahay cudurkan waa cudur lahay adduunka keenay awoodda bini'aadamkana lagu tusayo maaragtay oo aan maanta ma aragno markaynu usoo gudubno dhulka soomaalida oo runtii afrika guud ahaanba ay arrimaha caafimaadka iyo waxyaabahaasi marka dunidii horumartay aad aragto ay aada uga liidato maxaa laga filan karaa iyaga dhulka soomaalida muxuu ahaayey haddaba waxa weeye kiisaska qaar waa lagu arkay qaar waa ku dhinteen xadigoodina wuu kordhay maalmahan walahi soomaalida waa aragnaa jabuuti oo kale iyadu warmale baa la maraya inkastoo dhimashadu hal qof tahay somalilan oo kale 5 buu sii maraya kiiskii 60 muqdisho laga sheegayaa haddana durba waxaa muuqatay ujilisanaanta in cudurka u jilisanahay maxaa yeelay muqdisho kale 2 qof baa dhintay 2 qof waxay ka dhigan tahay 20 qof haddii 2 qof dhinteen 10% bay ka dhigan tahay halka adduunyada kale maraykanka oo kale daada 4% ama 5 lagu qiyaasayo waxay ku tusinaysaa marka in durba inaga kuluka uu jiro 100 qof hadduu ku dhimato macnaheedu waxa weeye 10% baa dhimanaysa moogta marka inaynu maaragtay u liidano ayaa durba muuqatay waxaynu arkaynay in laga cabanayay in dadka qaata qofka dhintay uu bilaa oxygen waa talaalay oxygen awood leh inuu heli waayo daryeel la'aan uu dhintay markii hore danagu adduunyada ka liidanay caafimaad ahaan haddana haddii cudurkan uu yimaado halisteeda leedahay marka inagu waxaan ka hortag baynu haysanaa fursadda ka hortagga la yiraahdo dadka Soomaaliyeed waxaan rabnaa inaynu u sheegno in waxaanu ku baxsan karnaa maanta tahay ka hortagga wax kale laguma baxsan karo marka inayna fududaysan waxana aynu dhab u qaadano oo maaragtay fariimaha la nafarayo ee gudiyada maaragtay cudurka loo xilsaaray nafarayaan aynu si dhab u qaadano si aan dadkeena iyo ummadeena u badbaadino arrimaha ganacsiga waxaad ogtahay in aynanu lahayn wax soo saar haddii xaaladdu adkaato dadkii ay ku noolaadaan haddiiba dunidu iminka waxaa jira in maraakiibtu weli isu soconayaan laakiin haddiiba istaagaan marka arrimaha ganacsiga uu saamayn xoog la ku yeeshay xanuunkani si maxaa laga filan karaa Soomaalidii wax soo dhoofsan jirtay xataa cuntada inay sidee ahaan doonaan haddii uu xanuunkani sii jiro waa run oo adduunyada muxuu kala xidhmaysaa bay muuqataa inkastoo waxyaalaha daruuriga ah aad sheegtay maraakiibta ay weli isku socdaan oo inta lagu caymanayo iyadoo waliba hadda maraakiibtii iyo wixii soconayaan bidcadii degaysan waxaan arkanaa alaabta in qayb kor ku yimi markaas suuqa dhex martid waliba qoytul daruuriga inuu kacay baad moodaa waliba aad u kacay Soomaaliduna waagii hore dad wax tabcaday ahaayeen ma yaqoonin waxaan disoo degiya beerahooda filan jireen haruudhay beeran jireen galeebay beeran jireen waxa isku baxsan jireen waxaad moodaa in ay muhiim tahay in halka loo noqdo inkastoo waqti kadiisa ay noo timi haddana xilli fiican oo go'ayeen ku soo beeganayo waxaan isleenahay wax waa la beeran karaa ilaah baynu tala saaranaa laakiinse haddii cuntadaas kala xanibato wallahi wax laga yaabaa halis weyn inaynu Soomaalidu ay gasho laakiinse cudurka dhinaca kale waxba laga baranayaa waxaynu ka baranaa waxa weeye inaan dhulkeena laga maarmayn inaan la isku halayn waxyaalaha dibadda ka soo degaya waayo dal walba maanta wax soo saara wixiisa u xidhay inagu waxaynu xidhanno ma jirtoba waxaynu adduunyada awal baysin jirnay ama xoolo ahayn laakiinse 90% waxaynu isticmaalnaa dibad baynu ugu iman jirnay haddii dibadda xanibatay waxay u eg tahay inaynu fursadda intaynu ka faa'iidaysano aynu dalkeena u jeesano inay muhiim tahay ilaahayna inaga sabata bixiyo ilaahayna qowtul daruuriga naga ma jiro insha Allah laakiinse halis baa dhacaysa haddii arrintaas ay timaado ganacsatada waxaan ugu baaqaynaa inay maaragtay dadka u naxariistaan oo wixii la haysto la wadaago oo maaragtay aan waxba ku kordhin dadka maaragtay tamarta yar ee aan awoodin inay maaragtay iska bixiyaan raashinkan qaaliyoobay fariintaada ugu dambaysa maxay noqonaysaa boqor fariinta ugu dambaysa dadka Soomaaliyeed guud ahaan waxaan leenahay cudurka ka digtoonaada oo talaabooyinka la idin sheegay kala fogaada farxasha maaragtay iska ilaaliya cudurkan afxidhkii sameeya ama umirta la insiinayo qaataanu leenahay waxaan ku soo afjarayaa gabay yar oo maalmo hore maaragtiriyay oo ku saabsan cudurkan coronavirus-ka oo adduunyadii runtii isla weynayd ka dhigay waxaan jirin baahda ka dhigay oo gaaladii waaweyneed aynu arkayno inay leeyihiin ilaah la baryo oo markii hore ilaahay dayaxaanu gaarno samadaanu gaarno miraheel baanu gaarno halkaanu gaarnay marka gabaygaas wuxuu leeyahay corona dadkii kale urdhow koonka wadayiile kala didis oo aawada la karantiireeye kansar adaa ka daray
oo dartaa kulama loo didi adduunyadii adaa kala xadhimay diide kala gooshe nuurkii adaa kala tago damiye kaahiye dhaqaalihii adaa kala xidhay joojay kobiciye kibir jibisay dunidii kufriga loogu dawgalay koonkaba dadkii joogay baad kala guraysaaye aakhiro adaa kuman u diray kuma naafeeyey kuman kale adaa gaajo baday kaalmana u diiday kuman kalena cabsidii aad badday kali la jifaane dhulna kii qabow iyo kulayl waad ku fidaysaaye kaafirkii ilaaha caasiyiyo muuminkuu simane dadna kii madow iyo caddan waad ku dhacaysaaye wasaqdaad ku tarantaa niyow waad ku kobcodaaye nadaafadda qofkii aan kamilin waad ku ururtaaye kadeed buu mutaystaa qofkii dabadda meeraaye kuwaan kala fogaan baad niyow kuma gelisaaye sariir baad horgaysaa qofkii kaadsan kari waaya qufac kagan naqas kugu qafilan xumad kugu saaran dhandhanka iyo urkaad kala tagtaa kuwaad asiibtaaye kaalmiyo gargaar uma ogolid kibis la siiyaaye karantiila dawo aan ahayn koonka laga waaya eebbaa ku keenoo dunidan kugu alhoomeeyey isagaana kaafiyi karoo koonkana abuuray kariimkuna wuxuu kuu kutibay waad ku dhacaysaaye ruux kale inaad soo riddaa waa kala aan dhicine isagaanu kaa magangalnoon karabsanaynaaye koonkaaga eebbuu ka qaad kaga cabaadsiiyo aad buu mahadsan yahay Siciid Cabdi Xasan oo ku magac dheer Cirmadow oo maanta aan waraysigan ku saabsan xanuunkan COVID-19 ee dunida saameeyay aynu ku eegnay saameynta uu ku yeeshay dunida iyo sidoo kale dhulka Soomaalida intaasi waxay noogu dhan barnaamijkeeni gaarka aynu ku eegnay xanuunkaasi inta aynu ku kulmi doono barnaamijka xiga waxaan kaga tagayaa salaamu calaykum wa rahmatullaahi ta'ala wa barakaatuh